dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa difaaca shacabka oo isgarabsanaya iyo kooxda Al-Shabaab ayaa ka socda deegaanka Ceel Hariiri oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Dagaal xoogan ayaa hadda ka socda deegaanka Ceel Hariiri waxaana gudaha deegaanka laga maqlayaa hubka culculus. Khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa la soo warinayaa oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayo. Dagaalka ayaa ku bilowday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa waxaana fashiliyay wiil geesi ah oo naftii hore ah wuxuuna gaariga ku furay rasaas. Gaariga ayaana ku qarxay meel ka fog goobta ay ciidanka joogeen, sidaasina waxaa ku fashilmay dhagartii ay kooxda soo maleegtay. Kooxda Al-Shabaab ayaa laba jibaartay weerarada ay ka geystaan gobolka Shabeellada Dhexe waxayna la wareegtay deegaano iyo degmooyin, inkastoo deegaano qaar laga saaray deegaanada kalena lagu raad joogo sidii looga saari lahaa.